kusoo dhawow cutubkii labaad ee koorsadeennii ku saabsanayd presentation skillska ama sida wax loo soo jeediyo ama xirfadda wax soo jeedinta. waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago khibrad ama maaragtay taariikh aniga isoo martay siba casharkeenan khaaska ah ku sii saabsan oo casharkeenan waxaynu kaga hadli doonaa ama cutubkan kaga hadli doonaa podium panic, argagaxa uu leeyahay inaan memberka soo istaagtay. podium waxa weeye waa memberkii aad istaagaysid dad marka u qudbaynaysid meelaha maaragtay la istaago marka dadka loo qudbaynayo ama stage-ka. panicna waa argagax. marka waxaan rabaa inaan wax yar idinla wadaago markii ugu horreysay oo aan damcay inaan wax soo jeediyo. aad ayaan u xasuustaa sababtoo ah waxay ahayd taariikh runtii lama ilaawaan. taariikhda waxay ugu kaliftay laba midkood inaan sameeyo, inaan dib dambe intaan noolahay aan meel dambe wax ka soo jeedin, iyo in aan maxaa la yidhahdaa isadkeeyo khaladaadkaygii dib u barto oo aan noqdo qof ma aragtay dee meeshii ugu adkeed soo maray oo sidaa daraaddeedna wixii aan ka baqinba aan noqdo labada midkood. marka ilaahay idinkii kii dambe ayaan qaatay oo ah inaan wixii khibrad ka qaato oo aan halkiina kasii wado. waxaan dhiganaynay diplom markaas English ku saabsan ayaan dhiganaynay. markaasaa waxaa la ii diray in maadaama aanu qalin jabinay oo diplomkii aan dhammaynay waxaa la ii diray inaan qayb ka noqdo ama ma aragtay noqdo khudbad soo jeediyo hool weyn oo ilaa 500 qof ka soo qaybgalayso, khudbad soo jeediyo oo aan ma aragtay dadka khudbaynayo oo maaragtay professorada iyo dadka kala duwanaayo maaragtay guddoonkii gobolka iyo dadka in lagu dhex tiro oo aan khudbad soo jeediyo. khudbadayda ma iloobo waxay ku saabsanayd nepotism and bribery. marka eexda iyo laaluushka ayaan ka hadlayay oo dadka Soomaalida markaa haysata ayaan ka hadlayay. marka waxaa igu dhacday in markii aan ma aragtay memberkii iyo wixii waan tagay meesha waa meel weyn oo soo arkay wax walba waa ii diyaarsanaayeen. dhowr beri ka hor baan waxayga soo xafiday. marka presentationka ama ma aragtay khudbadda aan jeedinayo way ii diyaarsanayd. maxaa la yidhahdaa intaan warqadda u dhiibo qofka waxaan dhahayay iga maaragtay aan soo jeediyo iga dhageyso. marka warqaddii si fiican ayaan u aqrinayaa, dushaan ka haya, anoo soo jeeda, anoo hurda, anoo istaagin, intaba dusha ayaan ka aqrin karaa. marka ma ogeyn waxaan inuu sidatan saameyn u leeyahay. marka anuu just waxaan focuska saarayay wixii aan soo jeedin lahaa keliya inaan aqaan in kale, laakiin isma lahayn waxaa jirta meel wixii aad xitaa taqaanay sida inaadan aqoon aad noqonaysid markaad tagtay. koos aniga qof iyo 2 iyo 4 qof iyo waxba u jeedin karay, laakiin 500 oo qof oo soo fiirinaysa oo dadkii ugu sarreeyay markaa gobolka meesha jooga way ugu adkaatay inaan oo dhalinyaro ah aan wax u soo jeediyo. taariikhdaas waxaan ku qiyaasi karaa inay ahayd dhowr iyo 10 sano ka hor. marka waxaa dhacday in maxaa la yidhaahdaa meeshii aan soo galay meeshii aad u weynaatay. marka hore gariirku marka hore caadi baan ahaa, waa sheekeynaya. markaan irinta ka soo galay hoolka weynaa ayuu igu bilowday walwalka iyo wax isweydiinta iyo gariirka. markii dadkii soo bateen waxay u sii badanayay frustrationka, anxiety-gayga ayaa sii badanaysay. therefore marka waxaa dhacday ishe markii dadkii ay qudbaynayeen oo khudbaddii ay bilaabatay inaan yaabay macnaha aan isla halkaas istaagi kartaa si dadka waaweyn maaragtay oo professionalska miyaad halka inta istaagtid aad u qudbayn kartaa oo dadka wax uga dhacin kartaa. marka runtii waan argagaxay. kadibna waxa dhacday markii khudbaddii aniga la marayay waan baxay, macnaha khadkii baan ka baxay. argagaxii tirada badnaa wuxuu keenay inaan qadkaba ka baxo. markaasaa magacaygii baa la aqrinayaa, qofkaan la sheegayaa wayaan isleeyahay. waxaa leeyahay wiil dhalinyaro ah oo maaragtay ka damqaday dhibaatada jirta ayaa maanta khudbad ku saabsan eexda iyo laaluushka soo jeedinaya. waxaa leeyahay wiilka belada waa keetaro. waa anigii hadda waa ogahay in aniga topic aan soo jeedina, laakiin wixii waa macnaha problemkii iyo wareerkii iyo walwalkii aan qabay ayaa keenay inaan baxo. magacayga xitaa waa la yeerinayaa, qof kale ay ila tahay magacayga saddexan baa la sheegaya, qof kale ila tahay. midkii igu xigay way taabtay oo ii waree istaag soo maaragtay adiga lagula hadlaya xagga tag. waxaan tagay inaan memberkii aan tago, kadibna aan haddii ilaahay ku idmayo aan soo jeediyo khudbaddayda dabcan aan godob galo. markaan memberkiisa u istaagay halkaas waxa weeye dhalinyaro xaggaa wax kale, xaggaa odayaal, xaggaa maaragtay ganacsato, xaggaa culum, xaggaa haweenkii
dadkii aad u tira badan yihiin markaan damcay marka inaan khudbadeydii aqriyo haddii laan warqadna markaa ma soo qaadan oo maxaa la yidhahdaa waxayga waan xafisnaa si waali aman u aqaanay laakiin isma lahayn waxbaa kaa dhumay khudbadii markaan salaantii aqriyey dadkii saa u fiirshanaysa bisinka dadka xitaa laga fiirin karo oon khudbadii aqriyey xoogaa aqriyey ayaa waxaan ka booday khudbadeeda laba qaybood ba qayb nepotism qayb bribery marka briberyga ama qaybta laaluushka hadlaysa ayaa dambeysay markaan salaantii yara saa u bilaabi rabay baan waxaan horey ku orday qaybtii ka hadlaysay briberyga oo dambe meesha nepotismkii qaybta eexda ka hadlaysay aan hormarin lahaa markaan meel dhexa marayo oo aan aqrinayo khudbadii inglishaan ku aqrinayo ayaa waxaa xasuustay inaan qaybtii koowaad ka soo booday marka ani caqli ahaan wixii systemkii ma fahansanaa haddaan wax fahansanaan lahaa tayadaas iska dhamayn lahaa problemka waxaan u leeyahay ogaan lahaa marka waxa weeye soo noqaan isla waan joojiyey waxaan damcay inaan soo aqriyo qaybtii hoose oo markii eexda ku saabsaneed baan damcay inaan soo aqriyo intaan joojiyey hadalkii eexdii markaan damcay inaan tii ku saabsaneed aqriyo nag waa soo qabo bal kaale adugu soo qabo waxaan damcay inaan taydii wato nag waa soo qabo maayo labadii qaybood qayb walba waa soo qabo maayo marka waxaan soo istaagay meel cidla runtii intaa waa aamusna almost 1 minute ka badan baa marka aamusna waxaan damcay salaantii inaan bal soo aqriyo introductionka ahayd salaantiina waa waayay nag meel cidla ah baan soo istaagay waxaa maskaxdayda soo qabo marka dadkiina dee buuq bay igu bilaabeen mar hore buuq igu bilaabeen oo 30 second markaa aamusnaa buuq bay igu bilaabeen maxaa la yidhahdaa waqtigu iska waqti adag buu ahaa dadkii dhalinyarada ahaa waa waliba igu daran oo markaa igu qayliyo markaa waxaa la bilaabay maxaa la yidhahdaa inay igu soo tuuraan xaashiye igu soo tuuraan marka adigu mara 1 minute iyo dheeri aan wareersannahay oo meeshii oo dhan iyo microfonka iyo aniga iyo dadkii aan qiil taagan xitaa waa garan waayo microfonka inaan dhigo oo iska soo tago oo maaragtay meeshii isaga fadhiisto marka runtii taariikhda noocaasa marka igu dhacday waxaa soo istaagay isha 00 waxaa dhacday inaan ma aragtay adigu macallinkii markaa raggii khudbeynayay xiliyihii oo dee baa wixii waxaan macna male dadkan waxaa ma garay adigu xun iska tag markaasaan adigu mar dambe oo dee meesha ku wareeray oo dhowr daqiiqo taagnaay oo dadkii isku baaba'ay baan xun tahay waan meesha dhiga iska soo fadhiistay taariikh runtii laba ilaawaana ayaa iga dhacday laakiin haddii aan ogaan lahaa oo xun tababara ah oo ku saabsan barnaamijkan aan ogaan lahaa embarrassment-ga intaa le iguma dhacin baan isleeyahay marka sidaas oo kale dad badanna waxa weeye si saysan taas uguba dhicin xitaa kama qudbeeyaan meel dad badan joogaan therefore marka inta badan way ka wareegtaan marka taasi marka waxay ahayd tusaale yaro ku kooban oo maaragtay ku saabsan body and bonic marka waxaad dareemi kartaa body and bonica ama baanika argagaxa laga qabo mimbarku inuusan runtii ahayn hawl sahlan wataynu ka hadlaynay dadku inay mimbarka soo istaagaan waxay kaga macnaha naxdinta ay ka qabaan meel mugdi ah qofku inuu maro oo mas ka baqo inuu qaniino iyo naxdinta in dadka hor istaago dadka ayaa u daraa dadka qaybtood marka insha Allah iidankii cutubkan waxaynu si fiican u qadaadhiyo doonaa body and banika waxaana awood u yeelan doontaa inaad at least la dhilgaraysid fahantid insha Allah aad iyo mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إن شاء الله قيبتنا وحنا كأركي دورنا سيدا لولا معملو أما لولا نيلقريو أرقاقحا لغا قاعدو منبركا أما منبركي إيو أرقاقحيسا سيدي لولا معملي لهاي أما how to deal with body and panic ayaan arki doonaa marka runtii haddaad og tahay macnaha farsamooyinka la isku ilaalisho maxaa la yidhahdaa ama loola macmilo si aadan baqdinta intaa la eg aysan maaragtay kuugu dhicin runtii waxaa kuu fududaanaya wax badan in aynu markaa aad ka digtoonaatid haddii ilaahay ku idmayo isla markaana aadan maxaa la yidhahdaa aad uga badbaadid barbalamidan uga badbaad marka qaabka ayaynu ka hadli doonaa okay ta koowaad waxa weeye audiences are forgiving dhagaystayaashu waa kuwa wax cafiya dadkii ku dhagaysanaya aad u qudbaynaysay ma ahan boqolkiiba boqol bini aadanka sideeda waxaan la soconna boqolkiiba boqol qofku inuusan shayga keeni karin yani perfect bini aadanku ma aha waxa uu samaynayo haddii warqad aad soo qaadid halkaa dhigtid oo lagu dhaho sidaa u dhig 100 warqadood waxba isdaba marinaysaa
mid baad qaldaysaa wax yar baa kala bedbedelaysa santiyaad kala qaldaysa therefore bini aadamku qaabkiisa ee shaqada u qabtoba ma ahan wax 100% ah laakiin 99 waxaas ku dhaweeyaa sidaa daraadeed dadkani way ku og yihiin inaad qof bini aadana tahay oo qodbaynaya maybe inay kugu cusub tahay way ku dareemi karaan maybe inaad ma aragtay aad waxan aqoon hore u lahayn wala ku dareemi karaan marka ha isdhihin meeshan hadaa wax qaladid waa maalinta ugu dambeysay ama waa lagu cunayaa ha isdhihin marka inaa wax gaftid dadka hortooda wax ku gaftid wax dhibaato ama bini aadan baad tahay bini aadankuna kulligood way gafaan marka taa maskaxdaada geliya oo maskaxdaada ka dhaadhici in audiencesku ku dareemayaan inaad horta qof bini aadan tahay waxna qaldi kartid aysan dhibaato ahayn dadka intaa hor istaagtid inaad aaminsid ama wax garan weydid ama warqad hoosa u fiirisid ama aad wixii ku wareegtid wax dhibaato inaysan lahayn taa marka kuwaad iska dhaadhici midda labaad arrinta labaad oo ku dilaysa wax weeye nervousness is usually invisible waa arrinta labaad oo raba inaad fahanto inaad muqtahay markaad podium soo gashid ama maaragtay meeshii soo gashid memberkii waa walwalsan tahay wadnahaada gargaraya dug buu ku hayaa marka maskaxdaada u sheeg wadnahaada dhugta leh dadka ma arkaan dadka kuma arkaan inaad walwalsan tahay dadka ma arkaan ma fahamta marka ma ahan inaad u dhaqantid sida dadkii inaad ma aragtay alla wala arkay alla wadnaha gargarinaya alla ma aragtay alla saan ahay alla waa baqbaqsanahay waxaas cidna ma aragto haddaa iska hadashid adoo baqsan qofka kuma arki karo inaad baqsan tahay ma fahamta ma arko xididadaas u shaqaynayaan gacanta saa kuma saarayo wadnahaada oo gariirkiisa iyo waxa ma arko qofka halkaa unbuu kaa arkaa muuqaada unbuu arkaa wadna gargarinigiisun arag naxdin buusan kaa arag markaa ha isdhihin inaad naxsantaha lagu arkaa therefore adigu iska hadal un waxaad sheegi lahayd sheeg waxaad qofka ka dhaadhici lahayd ka dhaadhici hawshaadi iska gudagal adigu ha isdhihin waa lagu arkaa inaad naxsan tahay ama aad baqbaqaysid midda saddexaad waxa weeye be yourself waa maxay waxa weeye nafsadaada ahaw adiga ahaw macnaha hadalka iska soo laabto macnaha wax kale ma ahan wax weeye qof dadka inta badan waxa waaye wuxuu qofku isku dayayaa markuu meel soo istaago ama dad u sharaxayo inuu wax kale iska khabiir iska dhigo maybe professional iska dhigo maybe si kale u hadlo maybe codka bedesho oo codka waaweyn ma garanaysa marka waxaas oo dhan maa inaad maaragtay maskaxdaada gelisid inaad khatar iska dhigtid ama maaragtay qof maaragtay aad waxaan khabiir waa ma aha waxaas oo dhan inaad maskaxdaada gelisid just qof caadi ah iska dhig hadda aniga marka ila hadlaysa ma dhibaatay kugu tahay inaad ila hadlayso oo wixii sheeg markaad qof la hadlayso hortaada jooga hal qof keliya oo horta walaalow waxaasan kaa doonaya markaad tina u sheegto ma dhibaatay kugu tahay sidii oo kale waxba codkaada balabalaha ka dhigaysa si kale ha iska dhigin wax kale ha raadin meelo duloole wax ka raadin sidii qof caadi ah aad ula hadli lahayd un dadkana ola hadal oo way badan yihiin un maqalka dadka maqlaya badanay laakiin adoo hal qof sida qof la hadlay isaga dhig waxaasan doonayaa saasaa weeye saddex gartay marka dambe waad keeni doontaa waqtiyo aad wax kala bedeshid waad gaaraysaa laakiin first time waxa weeye just be yourself wax balbalaa meelaha ka raadin just normal u dhaqa arrinta kale meesha ku jira waxa weeye practice deep breathing waxa weeye qofku inuu ma aragtay practice gareeyo neefta uu qaato inhale exhale fiirso tusaale ahaan arrintan ma sahlana runtii markaan ku sheegayo waxay kula tahay in xoogaa iska kaftan ah laakiin dad badan aan u sheegay oo ku dhaqmay toos bay u dareemaan effectiga inaad inhale exhale samaysid saasoo kale adhahdin inhale exhale inaad samaysid runtii wax badan oo nervouskaasna oo dareenkaadii ah oo walwalkaadii ayay dejinaysaa markaad meeshaba soo gashay marka koowaad inhale exhale mar walba walwal dareentid mar walba aad dareentid baqdin inhale exhale saasoo kale neefso ma garanaysaa saasoo kale samee marka inhale exhale markaad samaysid runtii mar walba nervouskaada ayaa hoos ku dhacaya mar walbo nervouskaada hoos u dhac ku dhaco mar walba oo aad awood u yeelanaysid in hadalkaadii uu sidii la rabay noqdo oo laga dareemin baqdin iyo maaragtay wixii la noqdo midda labaad waxaa kaloo jirta sideeda markaad rabtid inaad maaragtay wax soo jeedisid waxaa la yidhahdaa begin in your comfort zone ayadana marka waa qodobka shanaad aan dhihi karno oo loola dhiilgareeyo podium balancing begin in your comfort zone marka waa maxay ka bilow meesha kugu fudud
comfort zone waxa la yidhahdaa meesha aad jecesha meesha maaragtay meesha degan example hadal baad sharaxaysaa hadalkaadu wuxuu ku saabsan yahay geedaha marka waxaa rabtaa inaad sharaxdo laamaha kala duwan oo geedaha waxay ka kooban yihiin waxa ka samaysan yahay waxyaaba dhibta inay saartaa inaad sharaxdo marka waxaaba fudud ba intaadan intagiski waxyaabay aad ka hadda hal mar ka bilowdid oo kaa kala dhumaan wax laga yaabo xoogaa inaad meesha ku fashilmatid mideeda labaad mar walba oo mimbarka taagan tahay oo xoogaa taagnaatid cabsidu way kaa baabaaysaa hadda markaan 1 daqiiqo taagnahay oo 2 daqiiqo taagnahay daqiiqada shanaad iyo daqiiqada koowaad isku cabsi meeya cabsidu way baabaaysaa mar walba meesha sii taagnaatid marka dambe alwaax iska noqonaysa dadkaad ka mid noqonaysa mar walba ku noqonaysa therefore hadalka meesha adag ka bilaabine meesha adag hadhow adoo degan saa u gaartay hadalka soo jirjirayso salaanta ka bilow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulilaahi rabbil caalamiin arraxmaan meelahaas ku soo wareeg introduction saas soo kala samayso meelaha fudud soo aqriso si markaa adigoo xoogaa baadinqadintii kaa baxday dadkii la yara qabsaday aad u gaartid meelihii adkaa iyo mashruucaada ah barnaamijkaada qaybta koowaad intaa ayaan kusoo koobaynaa ha u daymo la-aan qaybta labaad إن شاء الله وحنا أقول بين عقيبة لبعض إذا لورا ديلقريه أما لورا معامله محل هذا بوديان بانيك وحلو يقانو ما ركتي إشي أرجعها لحريرة من بركة أم ستيج كما كان ماشي تقول بين لهاي هول كيبا أي نلاحظ مرة عقيبة كوبات ونصارنا قيبة لبعض بركة وحيابه إنه قاعد كدونا وحوي إذا نروح قلب بيك كوبانته قلب كل واحد هذا check out the room in advance marka waxa weeye waxyaabaha dajiya oo qofka inuu meeshii ka boqo keena ama maaragtay yareeya maaragtay qofka meeshii ka boqo ayay ka mid tahay marka check out markii uu leeyahay waxa weeye tag oo meesha intaadan ka qodbayn hadda meeshan oo kale hoolkan oo kale ayaad maanta wax ka qoran tahay qodbad saacad ka hor imo meeshii istaag fiirfiiri meeshii xalaad ku qodbaynayeen istaag baad la qabsanaysaa macnaha maskaxdaadii baad la qabsanaysaa maskaxdu wax walba ay la qabsato iyada automatic hadhow way dareemaysaa ma faham laakiin wax markii ugu cusub yihiin first time waxyaaba kale alla xaqiisa gaaya alla sii wax noqonayaan alla xaqii wax noqonaya alla waxa wareerka badan wuxuu ku keenayaa wax badan oo kale inay ka rumaan marka check out the room in advance haddii rabto maalin ka hor imo hadaa rabtid saacadaha soo hormaro soo dheere si aad ula sii qabsatid meesha midda labaad waxa weeye concentrate on the message adiga first time on meel ka qodbaynaysa ma aha 100% inaa meesha wixii la keentay 100% in sidii loogu talagalay ama sidoo qof aftahana aad meesha ugu qodbaysid qasab ah therefore waxa isku daydaa adiga fariintu inaysan meesha ka baxsan fariin baa gudbin lahayd soo ma waxba rabta inaad sharaxdo soo ma marka adiga dadka diiradda saaran si ku eegayaan sida ku firfiirinayaan waxa marka kuwa diiradda saaran iyada koowaad hadhow mar baa jirta dadka diiradda saaran laakiin first time just message ka diiradda saaran meesha soo istaag qulub aqal ma garanaysa يعني سيدا سي بروفيشنال ما هو اوكي لكن يعني هو ستيب باي ستيب اوف 100% محل هذا 100% مركوبه ما دقائق كره فيسس باجي ka sokoyo qof uu maaragtay u soo maray marka isku day in aad idinkii aad fariinta diiradda saarto waxa kala samaysaa begin with slow well prepared introduction have a confidence and clear conclusion laba shay baa meesha ku jira ama qodobka ku jira waxa weeye marka koowaad si fudud ayar horta u bilow hadalkaadii aad soo jeedinaysay midda labaad waxa weeye introduction-kaada hore diyaarso dadka salaamaysid magacyadoodii wixii warqad iska hayso waa muhiim inaad wax haysatid maxaa la yidhahdaa introduction-kaada horena si fiican u diyaarso waxaa kaloo si fiican u diyaarsataa gabagabada ugu dambeyn qof marka khudbadda aqrisid waa inay jirtaa wuxuu ka faa'iideeyay waa inay jirtaa waxa uu maaragtay iska daynayo ama wuxuu qaadanayo marka waa inaad ugu dambeynta qaybta ugu dambeyso gabagabada hadalkaada waa inaad leedahay waxaan ku gabagabeynayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa in laga waantoomo sidaa iyo sidaasna la qaato intaa iyo intaa haddaad maaragtay aad iska xaqiijisid listi message-kaada ugu gudbaya waxaa kaloo jira be prepared and practice arrintan waa arrin runtii fudud laakiin weyn
markii prepare lagu leeyahay wax weyn diyaar garow samee oo diyaar garow waxaad ku samaynaysaa isha marka hore waxaad aqrin lahayd waxaad soo jeedin lahayd wixii dhan waa diyaarsato intaan la gaarinba meeshaad ka rubayn lahayd markaas kadibna waxa weeye practice baad samaynaysaa ha isdhihin waxyaabaha aan arkay ayay ka mid tahay markaad waxaad diyaarisatay waa fududahay waa sharixi kartaa wax walba okay wey laakiin meesha markaad tagtid waxaa laga yaabaa inaad wixii xitaa sharixi weydo wixii si kale kula noqdaan ayaa laga yaabaa therefore marka saysan intaan kuugu dhicin waxaa isku daydaa in aad idankii aad ma aragtay practice samaysid ku celcelisid aqrisid waxaan ku xaqiijinaya haddaad khudbadtaa diyaarsatid muraayada intaa hor istaagtid keligaa aqrisid adoo wax qalday baad arkaysaa marka koowaad waad saxaysaa waxbaad qaldaysaa waad saxaysaa waxbaad saxaysaa marka dambe ugu dambeyn waxaad tegaysaa meeshii adoo 100% si wanaagsan wax u diyaashay ayaa tegaysaa intaas ayaynu ku joojinaynaa qaybtan aad iyo mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.